بسم الله الرحمن الرحيم. gurigan waa guri G+1 isbuucan ayaa la rabaa in la dego ilaa xalay waa laga shaqeynayay hoos wuxuu ka yahay bakhaar laba bakhaar korna wuxuu ka yahay hal apartment halka apartment waa kana mid halkan apartment waa midna hal apartment waa laba apartment uu ka yahay marka gudihiisna galiyaan soo aragnay halkan waa qol intana waa musqushi guri waa laga shaqeynayay musqusha waxaa ku jirto PVC okay musqushaas public waaye tanna qolkii yaraa waaye jikadana waa tanaa jikada qaab waxaa loo dhisay caalamiya saxankeeda iyo wixii iswataan qolo Turkiya samaysay weli ma aragtay meeshan digsi iyo wax ku jiro si isu dhisan yihiin okay masterka waa kana masterka waa yar laakiin waa ku filan yahay musqushiisina halkan ay ku taalaa iyadana PVC baabada kuwa Turkiga laga dhigay fadhigii musqushana waa kaas maasha Allah marka gurigan wuxuu ka kooban yahay 3 qol qolkan masterka guriga waxaa la geliyay decoration korkiisa corniche and decoration maahan wallahi waa halkiisa waa kana very nice fantastic halkan aan rinjeenay rabaa insha Allah marka waxa u dhiman nadaafadaas kaliya markii nadaafadaas la habeeyna guriga waa diyaar guriga waa la soo degi karaa fantastic qolkiisa masterka waa kan musqushiisi waaye very nice marka guriga wuxuu ka kooban yahay laba apartment labada apartment hoosna waa bakhaar weyn oo ilaa 5 gaari oo ilantare macna remote-kiisa alaabtiisa lagu xareyn karo halka apartment oo korna wuxuu ka kooban yahay 3 qol musqul iyo 3 qol laba musqul jiko okay qaybta korna gee marka qaybta kor waa barxad kaliya waxaa ka dhiman aluminiumka camera iskaalada bas in la geliyo guriga dan shaqadiisa isku dhamaato wow fantastic halkiisa taa ku jira koona kor guriga wuxuu ku yaalaa Tawfiiq gaar ahaan suuqa Tawfiiq shirkadda dhismaha guriga dhistay hoos ayaan kusoo qori doonaa maasha Allah wallahi waa very fantastic waa marka saakay gurigan ayaan nimaanay insha Allah duubitaankeena halkan ayuu ku eegyahay